السلام عليكم كسر هذا channel كيغا مودن سومالي فود ومعلن عصب iyo fiido cusub waxaan ku guda jirnaa taxanihii aan ugu talagalay bisha barakeysan Ramadan intaan fiidoogeeda guda galin hadii aad channelkayga ku cusub tahay fadlan subscribe isaar hadii kalena asxaabtaada iyo ehelkaaga la sii wadaag fiidooga maanta aan raba inaan idin la wadaago waxa weeyaan porridge waa suxuur baan ugu talagalay waa porridge ama miishaari qofba sida uu yaqaano dushana waxaan kaga darayaa waxyaabo healthy ama caafimaadka u fiican insha Allah fiidooga intaan ku gada jirno ayaan idin tusi doonaa marka ugu horeysa waxaan ku shubayaa koobadhkii oo caanahani waa almond milk qofka dietka ku jira caanahan aad ay u anfacayaan faad badan ma laha sidoo kale in yar oo biyo ah 3 meelood oo meel koobka weeyaan waxaan ku darayaa 3 milqaacadood oo porridge ah porridge kana kii ridqana maaha marka waxa weeyaan dabka inaad ka gaabiso si uu si fiican kuugu bislaado ilaa 5 minutes ayuu ku bislaanayaa waqti badanna ma qaadanayso marka waxaad sameyn kartaa habeenkii intaanad seexan ayaad sii sameyn kartaa waad yara dabooli hadhow toolan waad yara diirini waxaan ku darayaa sidoo kale milqaacad chai seed kana kii ridqana maaha shalay toolo sharaabka ku sameynayay waa chai seedkii caadiga ahaa marka porridge ayaan ku sameynayaa dabkana ka gaabi wax sonkor ah kuma darin anigu maadaama fruit iyo waxyaabo kale macaan dusha kaga darayo masha Allah sidaad arkaysaan ayuu soo baxay aadna uma adka xoogna uma jilicsana waa dhexdhexaad waa medium waxa aan imika dusha kaga darayaa waxyaabahan aad arki doontaan haddii Ilaahay raahdo waxa ugu horeysa aan ku darayo porridge-kayga ama mishaaradeedu waa walnut-ku aad ayuu caafimaadka ugu fiican yahay caruurta yaryarna waa la siiyaa waa loo ridqaa maadaama uu yara kuuskuusan yahay iyagana porridge-kooda loogu daro aad ayuu u fiican yahay sidoo kale blueberries-ku iyagu macaan badan ma laha waa fruitka aadku noocyada fruitka ugu fiican ayay ku jiraan blueberry-gu porridge-kan suxuur ahaana waad u isticmaali kartaa marka Ramadaanta laga baxana insha Allah quraac ahaan ayaad u isticmaalaysaa sidoo kale chai seed kale ayaan dusha kaga sii daro dheeraada kan waa nooc ridqana ayaan dusha kaga sii darsaday iyo in yar oo sabiib ah maadaama aan macaan ku darin ama sonkor ama malab aan ku darin sabiibtan ayaa macaan u sameynaysa masha Allah waa afur waxaan ka wadaa waa suxuur fudud raali noqda waa suxuur fudud caafimaadna leh faad badanna kuma jiro masha Allah tabaaraka raxmaan waxaan rajeynayaa inuu fiidoogan idin anfacay fiidoogiisa intaan ku kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu allahumma baarik lana fiima rasaqtana waqina cadaaban naar ma jiro hoos ruux u geeya amaba hore kuu kaxeeya naftaada adaa hogaansha adaa haya keenadeeda halkaad u jihaysa weeye kun haybood noloshu weeye kun hawlood baa ku xeeran kun bay hakisaa dharaarba kun bay si hagaajisaaye haddaad ku hungowdo kaalin hareer kala soo tijaabi